soo dhawaada asxaabi maanta waxaan idin soo koobi doonaa film American horror ah oo soo baxay 2014 filmkan magaciisu waa 13 Sins waana kan filmku ee daawo oo taxadir filmku waxa uu ku bilaabmayaa magaalada Perth ee dalka Australia Professor Edgar Solomon ayaa lagu soo dhaweeyay microphone-ka si uu khudbad ugu soo jeediyo dadkii xafladda joogay Professorku waxa uu khudbadiisa ku bilaabay gabay ku saabsan bakeyle iyo dacawo dhammaan dadkii xafladda joogay ayaa dhibsaday professorka iyagoo ku andacoonaya in gabay caruureedka uu tirinayo aanu ku habboonayn iyaga maadaama ay yihiin dad waaweyn gabadh taagneed professorka dhinaciisa ayaa professorka u sheegtay inuu joojiyo khudbadda professorku waxa uu gabadhii ku yiri iga raali noqo kadibna intuu mindi soo qaaday ayuu ku gooyay mid kamid ah faraheeda gabadhii aad ayay u qaylisay dhammaan dadkii xafladda joogayna waxay bilaabeen inay iskaga cararaan goobta professorkii waxa uu fartii gabadha ku duuduubay tiish haddaba mid kamid ah waardiyayaashii goobta joogay ayaa professorkii ku amray inuu gacmaha kor u taago laakiin professorku gacmaha kor umuusan taagin taa cagsigeedana waxa uu isku dayay inuu jeebkiisa kala soo baxo taleefan isla markiibana waardiyihii ayaa toogtay professorka professorku waxa uu isku dayay inuu soo qabsado taleefankiisa laakiin waa uu awoodi waayay dhinaca kale waxaanu aragnaa nin lagu magacaabo Elliot Brandel oo ku nool magaalada New Orleans ee ka tirsan gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka Elliot waxa uu la hadlayay saaxiibadii oo uur u leh Elliot waxa uu dhunkaday ilmihiisa caloosha ku jira waxaanay labadooduba rajeynayeen inay dhawaan isguursadaan Elliot waxa uu ku jiray maalmihiisii ugu wanaagsanaa ee noloshiisa laakiin Elliot markii uu shaqada tagay waxa uu yimid nin kamid ah madaxdiisii shaqada waxaana uu u sheegay in maanta laga bilaabo aanu ka shaqayn doonin shirkadda kadib markii laga soo eriyay shaqada Elliot waxa uu aaday gurigiisa isagoo aad u murugaysan waxaana uu guriga kula kulmay walaalkii ka yar oo lagu magacaabo Michael Elliot aad ayuu hadda u murugaysan yahay maadaama uusan heli karin $1,200 oo uu bil walba walaalkii kaga bixin jiray daawada maadaama walaalkii ka yar ee Michael uu yahay bukaan socod bil walbana lacagta daawada laga dhiibo Elliot waxa uu aaday aabihii oo lagu magacaabo Samson si uu caawimaad u weydiisto laakiin Elliot waxa uu ogaaday inaanu aabihii hadda shaqayn oo uu howlgab noqday habeennimadii waxaanu aragnaa Elliot oo ku dhex jira baabuurkiisa waxaana dhibayay oo marba dhinac kaga imaanayay duqsi yar isla xilligaasna waxaa soo wacay qof waxaanu u sheegay in isaga loo doortay bandhig ciyaareed uu ku heli doono lacag aad u badan laakiin Elliot waxa uu u maleeyay in qofkani been u sheegayo Elliot waxa uu isku dayay inuu taleefanka ku jaro qofka laakiin isla markiiba qofku waxa uu u sheegay macluumaad fara badan oo ku saabsan qoyskiisa qofku waxa uu Elliot u sheegay dhammaan macluumaadkiisa shakhsi ahaaneed iyo xitaa waxyaabihii uu la soo kulmay yaraantiisii waxa uu xitaa u sheegay in hooyadii ay ku dhimatay shil baabuur Elliot intii uu taleefanka ku hadlayay waxa uu sidoo kale ku qayliyay duqsigii isaga dhibayay qofkii ayaa Elliot u sheegay in haddii uu duqsiga dilo akoonkiisa loogu shubi doono $1,000 Elliot isagoo wax badan sii fikirin ayaa waxa uu dilay duqsigii isla markiibana waxa uu soo dhacay ogeysiis u sheegay in akoonkiisa bangiga loogu shubay $1,000 Elliot si degdeg ah ayuu gaadhiga uga degay isagoo hubinaya in cidi basaasayso oo ficiladiisa lala socdo Elliot waxa uu eegay hareerihiisa laakiin waxa uu ogaaday inuu kaligiis meesha joogo oo aanay cid kale u dhaweyn isaga Elliot isagoo taleefankiisa eegaya oo hubinaya in lacagtu dhab tahay ayaa waxa soo wacay qofkii waxaana uu u sheegay challenge labaad oo lacag badan ku helayo waxa uu u sheegay haddii uu liqo duqsiga inuu helayo lacag dhan $3,622 inta kadib Elliot si dhaqso leh ayuu u koray baabuurkiisa waxaanu si degdeg ah u soo aaday gurigiisa Elliot waxa uu eegay kombiyuutarkiisa waxaanu eegay lacagtii ugu jirtay akoonkiisa waxa uu ogaaday in $1,000 uu ku jiro akoonkiisa inta kadib Elliot waxa uu go'aansaday inuu challenge-giisa labaad sameeyo si lacagtu ugu badato waxaana uu liqay duqsigii dhintay isagoo ka yar wiswisaya isla xilligaasna waxaa soo wacay qofkii isagoo ugu hambalyeynaya hawsha uu qabtay isla markiibana waxaa lacagtii loogu shubay akoonkiisa bangiga Elliot aad ayuu ugu wareersan yahay wax dhacaya waxaana uu ninkii weydiiyay in xitaa gurigiisa laga dhex arkayo laakiin ninkii waxa uu Elliot u sheegay haddii uu su'aalaha badan joojin waayo in laga saari doono ciyaarta ninku waxa uu Elliot u sheegay dhammaan shuruucaha ciyaarta waxaanu u sheegay in haddii uu ka gudbo 13 challenge oo xidhiidh ah uu heli doono lacag aad u badan waxa uu u sheegay in haddii uu mid kamid ah ku guuldareysto lagala noqon doono dhammaan lacagtii hore ugu dhacday akoonkiisa waxa uu u sheegay in hadda uu ka soo gudbay labadii challenge ee ugu horeeyay ayna u harsan tahay 11 challenge oo kaliya Elliot waxa uu aqbalay dhammaan shuruucihii ciyaarta isla markiibana waa la diiwaan geliyay
Maalinimadii xigtay, Elliot iyo waalidiinta saaxiibadii ayaa waxay joogeen meel baarkin ah, waxaanay sugayeen wicitaanka ninkii mas'uulka ka ahaa ciyaarta. Isla markiibana waxaa Elliot soo wacay ninkii, waxaana uu u sheegay in challenge-ga saddexaad uu ku heli doono lacag $5,000 ah, waxaana loo sheegay inuu ka ooysiiyo ilmo yar. Elliot waxa uu eegay hareerihiisa si uu u helo ilmo yar. Isla markiibana waxa uu arkay gabadh yar oo xagiisa u soo ordaysa. Elliot waxa uu ogaaday in tani ay u tahay fursad aad u fiican. Waxa uu u tagay gabadhii yarayd, waxaana uu u sheegay in waalidkeed ay geyn doonaan xarunta agoomaha, halkaana ay kaga soo tagi doonaan. Gabadhii yarayd aad ayay u ooyday, waxaanay u oraday dhinaca waalidiinteed. Isla markiiba Elliot waxa akoonkiisa bankiga loogu soo shubay $5,000. Intaa kadib, Elliot iyo saaxiibadii waxay koreen baabuurka iyadoo ay ka soo daba qaylinayso islaantii dhashay saaxiibadii. Intaa kadib, Elliot iyo saaxiibadii waxay soo aadeen kaniisadda si ay uga soo kaxeeyaan Elliot aabihii oo kaniisadda ku cibaadaysanaya. Isla xilligaasna waxaa Elliot soo wacay ninkii mas'uulka ka ahaa ciyaarta, waxaanu u sheegay challenge-ga afraad, isagoo u sheegay inuu gubo alaab dhaqameed yar oo kaniisadda taallay. Intaa kadib, Elliot waxa uu soo qaaday alaabtii iyadoon cidna arkayn, waxaanu soo hordhigay bannaanka kaniisadda, halkaa ayuuna ku gubay. Laakiin cabaar kadib, dabkii ayaa si lama filaan ah ugu fiday dhammaan gidaaradii kaniisadda. Intaa kadib, Elliot si degdeg ah ayuu aabihii iyo saaxiibadii ugala soo cararay kaniisadda, waxaanu wacay debdemis. Isla xilligaasna Elliot waxa akoonka loogu shubay $10,000. Elliot waxa loo soo bandhigay challenge-giisa shanaad, waxaana loo sheegay inuu dhaco qof darbi jiif ah oo guri la'aan ah. Dhinaca kale, saldhigga booliska waxaa yimid waalidkii gabadhii yarayd iyagoo ka warbixinaya hadaladii lagu yidhi gabadhooda. Isla xilligaasna qof darbi jiif ah oo dacwaha ayaa yimid saldhigga. Dambibaadhe Jill Gott ayaa loo sheegay in qof xaday dhar iyo alaab uu lahaa darbi jiifku. Dambibaadhuhu markuu arkay sawir gacmeedka laga sawiray dambiilaha ayaa waxa uu ogaaday in dambiiluhu yahay isla ninkii kaniisadda gubay, gabadhii yaraydna hadallada beenta ah u sheegay oo ka oohiyey. Elliot waxa uu hadda gaadhay challenge-giisa lixaad, waxaana lagu amray inuu nin ka soo kaxeeyo guri uuna u kaxeeyo meel cafeteria ah, weliba uu soo siiyo koob kafee ah. Markan Elliot challenge-gan waxa uu la muuqdaa mid aad u fudud, laakiin markii uu guriga gaadhay, Elliot waxa uu arkay qofkii loo diray oo meyd ah oo ku dhex jira saxanka qubayska. Elliot aad ayuu u naxay, waxaana uu soo qaaday freezer, waxaanu ku buufiyay dhammaan jirkii meydka si aan loo dareemin urtiisa. Intaa kadib waxa uu u labisay meydkii, waxaanu ku qaaday Corleone. Isla markiibana waxa uu geeyay cafeterigii ugu dhawaa. Isla markiibana waxa uu timid gabadh kabalyeeri ah si ay u weydiiso dalabkooda, inkastoo aanay dareemin in labada nin ee meesha fadhiya mid ka mid ah uu meyd yahay, waxaanay u maleynaysay in ninka koofiyadda xidhan ay hurda hayso. Intaa kadib, Elliot waxa la siiyay waqti kooban si uu u dhammaystiro hawsha. Isla xilligaasna waxaa meesha soo galay niman boolis ah, laakiin boolisku maysan arkin Elliot. Elliot waxa uu ogaaday in waqtiga loo qabtay uu ka hadhsan yahay dhowr sekin oo keliya. Sidoo kale waxa uu arkay in kabalyeeriyadu ay kala soo daahday dalabkiisii. Elliot isla markiiba waxa uu koob kafeeya ka soo dafay miiskii booliska, waxaanu soo hordhigay meydkii, sidaas ayuuna ugu dhammaystirmay challenge-giisii. Inkastoo uu dhibaato kala kulmay booliskii, Elliot iyo booliskii waxaa dhex maray xoogaa muran ah. Ugu dambeyntiina Elliot waxa uu ku guulaystay inuu ka baxsado booliska. Isla markiibana waxaa la soo hadlay ninkii ciyaarta ka mas'uulka ahaa, isagoo ku bogaadanaya qaabka uu uga baxsaday booliska. Hadda Elliot waxa laga boodsiiyay challenge-gii 7aad, waxaana si toos ah loogu boodsiiyay challenge-gii 8aad. Elliot aad ayuu u farxay, laakiin ninkii ciyaarta ka mas'uulka ahaa ayaa u sheegay inuusan farxin maadaama boolisku ay heleen caddayn uu meesha kaga tegay. Elliot aad ayuu u argagaxay, laakiin haddana waxa uu go'aansaday inuu sii wado ciyaarta maadaama uu faa'iido badan helayo. Intaa kadib, Elliot waxa uu raacay bas si uu u gaadho goobta uu ku filanayo mishinkiisa xiga. Dhanka kale, gudihii cafeteriga waxaa laga helay meydkii, sidoo kale dambibaadhihii ayaa helay ID card-kii Elliot. Intaa kadib, dambibaadhuhu waxa uu arkay nin la hadlaya gabadhii kabalyeeriga ahayd. Kabalyeeriyadda ayaa dambibaadhaha u sheegtay in ninku uu wax ka weydiinayay arrimo ku saabsan Elliot. Dambibaadhuhu waxa uu bilaabay inuu ninkii daba galo, waana uu soo qabtay. Intaa kadib, dambibaadhuhu waxa uu su'aalo weydiiyey ninkii. Dabcan ninkani waxa uu ahaa nin sida Elliot oo kale ciyaarta ugu jiray. Ninkii ayaa waxa uu dambibaadhihii u sheegay dhammaan macluumaadka ku saabsan ciyaarta iyo waxyaabihii ay soo sameeyeen. Dhanka kale, Elliot waxa uu sameynayaa challenge-giisa 8aad, waxaana lagu amray inuu gacanta ka jiro saaxiibkiisii dugsiga sare ee John. weliba waxaa lagu amray inuu gacanta si taxadar leh uga gooyo, sababtoo ah John waxa uu gacantiisa u jarayaa lacag darteed.
laakiin Elliot arrinta uu ka labalabeeyay ugu horreyntii inkastoo uu markii dambe ogolaaday kadib markii uu soo xasuustay cagajugleyntii ahayd in lacagta akoonka ugu jirta lagala noqon doono haddii uu dhammaystiri waayo hawsha. Elliot waxa uu gacantii ka gooyay John waxaanu isla markiibana u kaxeeyay isbitaalka. howlgalkan Elliot waxa lagu siiyay $250,000. Elliot waxa uu aaday xafladiisii arooska. isla xilligaasna booliskii ayaa yimid xafladda waxaanay rabeen inay xidhaan Elliot. laakiin Elliot waxa uu jajabiyay seesaro waxa kale oo jajabiyay ubaxyadii xafladda yaalay isla markiibana waxa uu ka baxsaday booliska. laakiin challenge-ga xiga waxa uu noqday inuu isu dhiibo booliska. Elliot waxa uu aaday saldhigga booliska waanu isdhiibay. Elliot waxa uu booliska u sheegay dambi kasta oo uu sameeyay laakiin boolisku waxa uu ku eedeeyay dambiye aanu gelin isagu. isla markiiba Elliot waxa uu ogaaday in ciyaarta uu kula jiro qof kale. Elliot waxa uu jabiyay lugtii kursiga uu ku fadhiyay waxaanu baaskoolad ka qaaday ninkii wareysanayay waxaanu askartii ku amray inaysan isdhaqaajin isla markiibana waxa uu ka booday daaqadda. isla xilligaasna waxa ka lumay taleefankiisii waxaanu waayay meel uu kala xiriiro ninkii ciyaarta mas'uulka ka ahaa. laakiin waxa uu arkay islaan lug naafa ka ah waxaanu ogaaday in gudoomiyaha ciyaarta uu soo diray islaanta. labadoodiibana waxay tageen meel boosteejo tareen ah. dhanka kale dambi baadhihii waxa uu soo helay nin lagu magacaabo Fogler waxaana uu dambi baadhaha u sheegay in xaaskiisu ay ciyaartay ciyaartan oo kale aakhirkiina ay ku dhimatay ciyaarta gudaheeda. dhanka kale islaantii waxay Elliot u sheegtay in lagu amray inuu xadhig meel ku xidho dharna uu ku wadho. Elliot waxa uu fuliyay amarkii laakiin waxa uu arkay koox dhalinyaro ah oo mootooyin ku tartamaysa oo u soo socota wadadii uu ku xidhay xadhigga waxaanu ogaaday in xadhiggu uu dhalinyarada qoorta ka wada goyn doono. Elliot si degdeg ah ayuu xadhiggii uga jaray wadadii maadaama uusan rabin in dhalinyaradaas ay gacantiisa ku dhintaan. laakiin nasiib xumo qof kale oo ciyaarta ciyaarayay ayaa dhalinyaradii xadhig ugu xidhay wadada dhammaan dhalinyaradiina qoortii ayaa ka wada go'day. intaa kadib Elliot waxa uu diiday inuu ciyaarta sii wado waxaanu daba orday ciyaaryaankii dhalinyarada laayay si uu isagana ugu qanciyo inuu iska dhaafo ciyaarta. laakiin ninkii waxa uu ka haystay baabuur sidoo kalena Elliot waxa uu soo kaxaystay baabuurkiisa waxaanu eriyaday baabuurkii. Elliot waxa uu taleefan u goobta ka soo xaday uu ka wacay ninkii ciyaarta mas'uulka ka ahaa waxaana Elliot loo sheegay inuu qabto challenge-giisii ugu dambeeyay waxaana loo sheegay in dhammaan ciyaartoyda lagu wargeliyay inay dilaan qof ka mid ah qoyskooda waxaana loo sheegay inuu isna dilo mid ka mid ah qoyskiisa. Elliot waxa uu damiyay moobilka isagoo rabin inuu ciyaarta sii wado. Elliot markii uu soo gaaray guriga ayaa waxa uu arkay baabuurkii uu eryanayay oo hor yaala gurigiisa. markii uu gudaha u galay guriga waxa uu arkay aabii oo fadhiya qolka fadhiga. sidoo kale waxa uu arkay walaalkii Michael oo ka soo baxay musqusha. Elliot waxa uu ogaaday in walaalkii uu watay baabuurka dibadda yaala uuna yahay ciyaartooygii labaad ee ku jiray ciyaarta uuna yahay ciyaartooygii laayay dhalinyaradii mootoleyda ahayd. Elliot aad ayuu u argagaxay. Michael waxa uu rabaa inuu dhammaysto ciyaarta maadaama lagu soo yiri waxa soo dishay qof qoyskiina ka midana waxa uu qorsheystay inuu soo dilo aabihii si uu ugu guuleysto ciyaarta. odaygii ayaa labadiisii wiil u sheegay inuu isagu ciyaartan oo kale soo ciyaaray sanado badan ka hor uuna ku guuleystay kadib markii uu dilay hooyadood. Elliot iyo Michael aad ayay u argagaxeen markii ay maqleen hadalkii aabahood u sheegay. Elliot waxa uu isku dayay inuu aabihii dilo balse odaygu isagaaba gacantiisa isku dilay si aanay u guuleysan labadooduba. intaa kadib Elliot waxa uu arkay walaalkii Michael oo qorsheynaya inuu dilo isaga laakiin isla markiibana uu ku fahmay waxaanu ku jarjaray rasaas. Elliot waxa uu sidaa ku dhameeyay dhammaan 13kii challenge ee loo diray. Elliot waxa uu ka baxay guriga isagoo dhutinaya halka dambi baadha Elliot uu sii eegayo Elliot. hadda waxaynu ogaanay in dambi baadhuhu laftiisu uu yahay ciyaaryaan ku jira ciyaarta maadaama uu soo diray Fogler. dambi baadhuhu waxa uu isku dayay inuu meedka gubo si uu cadaynta u tirtiro laakiin intuusan hawsha dhamayn waxa soo gaadhay Elliot oo toogtay isagii. intaa kadib Elliot waxa uu wacay xaaskiisa Shelby waxa uu u sheegay inuu ku guuleystay ciyaarta uuna caafimaad qabo.